kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Muqdisho gambi doorasho maxamed cabdullaahi farmaajo barnaamij lagu taageeray Ra'iisul Roble oo maanta Muqdisho ka dhacay xildhibaan fiqi oo dil ka badbaaday ciidanka ammaanka oo kala eriyay barnaamij ay mucaaradka soo abaabuleen awoodii farmaajo soo laabatay Farxaan Qaroole oo runta Roble u sheegay iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda Muqdisho balse marka hore saaxiibayaal u diyaar garooba qodobada hordhaca warka daawateen oo dhameystiran وهجاج أين كبلاوني مقالة مقدسة عاصمة الصومالية وحكى داعي مانتا بنابح معارض كيسوا أبولين كاسو عمدا أمن يقولون يسوي نجهرتجين أهم على الفقي على هذا شكل ورسمي يحمل كلا معارض كا يهرك عيب بنابحن وحنا حبضوا هذه صديق عيدا كبوليس كبر كبنادر وهو الرئيس عن قراله يتلي كحجين كعيدا كبوليس كصومالية كنيف ولا الشاقين كهرتجين بنابح عاصم معارض كي قرشينيين أصير شيء وزير كامنيجا أيها جواب صبيحية يكون آدن بنابح عاصي يعيدا كذا بقاتين تبع qayb ka mid ah magaalada Muqdisho waxa ka bilowday barnaamij ballaaran oo lagu taageeray Ra'iisul Maxamed Xuseen Roble iyadoo haween dhalinyaro badan ay ka qayb galayaan barnaamijkaasi dibadbaxan waxa hormuud ka ah xildhibaano iyo siyaasiyiin habargeera oo Axmed Cali Fiqi ugu horeeyo iyagoo wata barnaamijyaasha boor lagu sawray madaxweyne Farmaajo maadaama laga soo horjeedo hanaankii Afgambi ee isniintii isbuucan uu sameeyay Farmaajo isku soo baxayaasha waxay cod dheer ku sheegeen inaysan aqbali doonin kaligii talisnimo waa sida ay warka u dhigeen kuna dhawaaqayeen Afgambi maya doorashaha dibadbaxa ayaa ka socday agagaarka Saybiano ilaa beerta qaadka ee degmada Hodan waxaana ay sheegeen isku soo baxayaashu inay garab istaagayaan Roble oo dalka awoodiisa isaga maamulka ah iyadoo barnaamijkaasi uu ka dhacay maanta Muqdisho haddana waxa socota waan la isku dayo in xiisadda siyaasadeed ee dalka qalqal gelisi lagu dhameeyo oo Farmaajo iyo Roble ay wada hadlaan waxaana barnaamijkan ugu soo aadayaa xilli madaxweyne Farmaajo iyo Roble khilaaf weyn uu ka dhaxeeyo dhinacyo kala duwan iyo xitaa beesha caalamka ayaa kulamo gaar ah leh madaxweyne Farmaajo iyo Roble si looga badbaadiyo dalka dagaal sokay bur ku yimaada dowladnimada Soomaaliya dhinaca kale barnaamijkan socday Muqdisho ka dhacay ayaa waxa barnaamijyaasha awood iyo ciidan u adeegsaday Farxaan Qaroole taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo sidoo kale taliyaha ku-xigeenka booliska Kaniif oo beelahaan isxigaan dadka barnaamijyay aad nagu carooday waxa maanta Muqdisho ka dhacay barnaamij ay dhigeen dad isaabuli ka oo ka dhacay xaafadda Saybiano degmada Hodan waxa ay kaga soo horjeedeen Afgambi ee sheegay inuu doonayo Farmaajo barnaamijyaasha ayaa ku qeylinayay erayo halku dhigay ka soo dhigteen sidoo kale siyaasiga Cabdixaan Shukur Warsame iyo wasiirkii hore ee amniga Galmudug Axmed Cali Fiqi ayaa waxa ay sheegeen barnaamijka ay hor istaageen taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Sarreeye Guute oo loo dalacsiyay dhawaan Ismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Qaroole dibadbaxa laga soo horjeedo Afgambigii Farmaajo ayaa waxa uu risaagay Farxaan Qaroole iyo Kaniif Ra'iisul Roble iyo wasiirkiisa amniga waxaan ka codsanaynaa inay dadka ka hor wareejiyaan haraadiga kaligii talisnimada ayuu yiri Cabdiraxmaan Shukur Warsame dhinaca kale wasiirkii hore ee amniga ee Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo warkacay barnaamijyaasha ayaa waxa uu dhankiisa yiri askar ay soo direen taliye ku-xigeenka booliska Kaniif iyo taliyaha gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ayaa la ii sheegay inay surisaa ku sameeyeen shacab barnaamijhan si nabadgelyo u sameeyay degmada Hodan oo aan qaybtiisii hore aan goobjoog ka ahaa waxa muuqata nimankaasi in wali la shaqeynayaan rejiimkii waqtigu ka dhamaaday ayna dhigaha ka fureyseen baaqi ra'iisul wasaaraha ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi taliyaasha lagu eedeeyay inay barnaamijkan joojiyeen ayaan wali ka hadlin waxaana tani qayb ka tahay khilaafka xoogaysan ee u dhaxeeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya hadda barnaamijyaashii waa la kala ceeriyay hasiyeeshe eedda ugu weyn waxa wajahaya Farxaan Qaroole iyo Kaniif oo la sheegay barnaamijkaasi awood ciidan ay ugu hortageen dhinaca kale wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ku hanjabay inuu tallaabo ka qaadi doono Farxaan Qaroole iyo Kaniif oo maanta lagu soo eedeeyay inay hor istaageen barnaamij lagu taageerayo Roble oo ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir wasiir Cabdullaahi ayaa la sheegay inuu yeeray labadan taliye isla markaana wax laga weydiinayo sababaha keenay inay hor istaagaan barnaamij nabadeed oo ka soconaya gudaha magaalada Muqdisho xaaladda ayaana hadda sii adkaanaysa waxaana suuragal tahay in mar kale xilka laga qaado Farxaan Qaroole iyo Kaniif
wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa hadda wadada kala duwan oo lagu hortagayo saraakiishii maanta isku dayday in ay burburiyaan barnaamijkii lagu taageerayo Rooble lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho waxaana xoog kala duwan helayna ay sheegayaan in la qorsheynayo sidii looga takhalusi lahaa taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo taliye ku-xigeenka booliska oo xilka qaadis loogu sameyn lahaa waxaana wasiirku si cad u sheegay in tallaabo ka qaadi doono saraakiisha lagu eedeeyay inay maanta hor istaageen barnaamijkii ka dhacay degmada Hodan gaar ahaan xaafadda Saybiyaano ee magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay in loo soo gudbiyay cabasho ka dhan ah booliska Soomaaliya oo ku aadan in ay waxyeello u geysteen mas'uuliyiin iyo shacab ka qayb galayay is-soobax nabadeed oo maanta ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho waxay soo gaartay cabasho in hay'adaha amniga gaar ahaan booliska dalku waxyeello u geysteen mas'uuliyiin iyo shacab ka qayb galayay is-soobax nabadeed ayuu yiri wasiirka amniga ee Soomaaliya sidoo kale wuxuu sheegay in ay ku sameyn doonaan siday wax u dhaceen baaritaan dheer waxaan shacabkii mas'uuliyiintaas u sheegayaa in uu u xaqiijinayo inaan marna la aqbali doonin in saraakiisha hay'adaha amniga ku kacaan falalka lagu soo eedeeyay yiri wasiirka amniga Soomaaliya ugu dambeyn wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan lana la ilaaliyo xasilida caasimadda lana aqbali karin wax rabshadaha sida uu sheegay warkan ka soo baxay wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa yimid kadib markii siyaasiga Cabdixaan Shakuur Warsame iyo wasiirkii hore amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqe ay sheegeen in taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Kaniif iyo taliyaha booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ay joojiyeen dibadbax lagu taageerayay Ra'iisul Rooble magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xaalad kacsan ayaa weli ka taagan weli waxaa la dareemayaa saansaanta iyo xiisadii ka dhex taagan Farmaajo iyo Rooble kuwaas oo la aaminsan yahay in saameyn weyn ay ku yeesheen dhaqaaqida guud ee Muqdisho iyo xasilada magaalada Muqdisho sidoo kale ciidamadii booliska ahaa ee kala eriyay barnaamijyaasha ayaa hadda la sheegay in looga yeeray xarunta guud ee booliska isla markaana su'aal laga weydiinayo cid amarka siisay iyo sababta ay u waxyeeleeyeen shacabkii barnaamijyada iyo mas'uuliyiintii hogaaminaysay taasi oo mar kale saameyn ku yeelan karta Farxaan Qaroole Kaniif iyo sidoo kale ciidankii maanta kala eriyay dadkii barnaamijyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dhowr jeer hore sidoo kale barnaamijyo dhacaya iyo ciidanka xabad ku rideen hase yeeshee markan waxa la sugayaa tallaabada uu qaaday wasiirka amniga oo ku hanjabay inuu wax ka qaban doono dhibaatada ay geysteen saraakiishii ciidankii maanta xabada ku riday shacabku barnaamijyay xaafadda Saybiyaano ee degmada Hodan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa hadda si weyn u ruxmaysa siyaasadana way sii kululaanaysaa waxa sidoo kale khilaafka Farmaajo iyo Rooble oo isku bedeli kara mid qabaa'il ah sida yaqaan dadka falqeeya ama odorasa arrimaha Soomaaliya banaabaxan maanta dhacay ayaa waxa dhigay dad ku beel ah Maxamed Xuseen Rooble oo jifadiisa wasaa sida xogta ay sheegayso waxaana horkacaya siyaasiyiin habargedir ah oo ugu horeeyo Axmed Macalin Fiqi iyo xubno kale oo ku dhow wasiirka koowaad ee dalka Soomaaliya waxaana ay ka dhiidhinayeen tallaabadii Farmaajo shalay uu ku sameeyay Rooble dhawaan ay ahayd in uu afgambi ku sameeyay xafiiskiisa kadib markii ciidamo isaga gaar u ah uu diray siyaasiyiinta habargedir ayaa hadda ku goodinaya in ay garab taagan yihiin Rooble tallaabka san ay u qaadayaan si badiyaan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Farxaan Qaroole ayaa markan isaga qudhiiso ay gudkiisa biyo soo galayaan waxa hadda uu wajahaya eedayn culus maadaama khilaafka Farmaajo iyo Rooble uu sii cuslaanayo isla markaan Rooble dhawaan uu amray saraakiisha ciidanka in isaga uu ka amar qaataan haddana wasiirka amniga gudbin kara dalab ah in xilka laga qaado Farxaan Qaroole iyo Kaniif maadaama ay xabadeeyeen Soomaali iyo dad banaabax ka dhigayay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho eedamahan culus ee loo jeedinayo Farxaan Qaroole iyo Kaniif ayna ku weyn karaan xilkooda sida ay sheegayaan dad u dhunduleela arrimaha ciidamada oo si hoose noogu xog waramay wararkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho marka laga reebo banaabaxaasi maanta dhacay inta kale magaaladu degan tahay jawiguna waa uu degan yahay asii yeeshee waxa la hadal hayaa wali dagaalka iyo khilaafka u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble iyadoo sidoo kale lagu kala tagay kulamo iyo wada hadallo laga dhaxwaday Farmaajo iyo Rooble oo ra'iisul wasaaruhu ku adkeysanayo inuusan qaabili doonin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taas oo mar kale saameyn weyn ku yeelatay socodka labada xafiis ee howlaha shaqada qaranka iyo sidoo kale arrimihii doorashooyinka ee Soomaaliya sidoo kale si guud siyaasadda Soomaaliya way kulushahay xitaa beesha caalamka ayaa soo faragelinaya digniino ayaa loo diraya Rooble iyo Farmaajo ku aadan in xiisadda ay qaboojiyaan guud ahaan daawadayaal wanaageentaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda Soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.